ciidankeennu markuu qabri dahre qabsaday Mengistu Haile Mariam wuxuu shiriyey dargigiisii wuxuu yidhi ciidanka qabri dahre qabsaday laba arrimoodba wuu inagaga tayo fiican yahay tababarka uu qabaa waa inaga fiican yahay qalabka uu haystaana wuu inagaga fiican yahay hal shay baynu inagu kaga fiicannahay waxaynu kaga fiicannahay ciidamada cirka laakiin ciidamo erdhul ma qabsadaan haddii uu dagaalku sii socdo 6 bilood waxaa laynagu qabsanayaa waxaa laynoogu imanayaa Addis Ababa markaa talo hala keeno waxay noqotay in la yidhaaho tag Sovyetka oo kolkaas iyaga naftoodu ay markaa qaateen nidaamkii hantiwadaagga ahaa oo kolkaas Sovyetku uuna kolkaa iyaga xumaan u qabin wuxuu u tegey Brezhnev waa buuggii laga qoray Mengistu Haile Mariam afxmaar buu ku qoran yahay anu kaasaan akhriyey wuxuu ku yidhi dalkaygii baa la qabsaday waxaan rabaa taageero wuxuu yidhi waa daallan tahay Black Sea tag oo soo naso wuu xanaaqay oo wuxuu yidhi ma dalkaygii la haystaad leedahay soo naso wuu ka yimid dagaalkii kolkuu jigjiga ka socdo Maxamed Siyaad ayuu Brezhnev u yeedhay wuxuu yidhi dagaalka ku jooji bartaas jigjiga ku jooji anu ma garanayo kolkaa labadaa arrimood ee Brezhnev labaduba ay Brezhnev ka soo baxeen ujeeddadu ka lahaa ma garan laakiin waxaan isleeyahay oo keliya maskaxdayda yar malaha wuxuu is yidhi hadday jigjiga gaadheen Soomaali dhulkeedii way haysataa ma sidaasuu u fikiray ma aqaan kolkaa Maxamed Siyaad wuu ka diiday halka qorshaheennii siyaasadeed uu ku fashilmay bartaasay noqotay kolkuu ka soo noqday waxaa loo yeedhay Fidel Castro oo 76dii halka yimid intuu halka inaga yimid ina yidhi Etoobiya laba dal oo hantiwadaag dhisayaa tihiin Etoobiya inagana kolkaa qorshaheenna wuu socday oo kolkaa magac jabhadeed ayaa xataa ciidamadeennii oo yuniformkii laga dhigay ay ku jiraan oo la galay kolkaa dagaal baad Etoobiya ku wadaana ka jooga ayuu yidhi maynaanka stadiumka malaha fara badan oo stadiumkii Muqdisho hadda la yidhaaho maxaa Yariso loo bixiyey ayaa lagu shiray oo dadweynihii lagu shiriyey oo khudbow halkaa ka jeediyey u leeyahay ha gelina Etoobiya dagaal la gelina laakiin kamaynaan ogolaan muu joogsanay wuxuu tegey cadan buu tegey oo kolkaas iyaguna ahaa dal dee nidaamkaa ku jiray waxaa la isugu yeedhay Maxamed Siyaad madaxweynihii Soomaaliya Mengistu Haile Mariam Cali Biid oo Yemen ahaa iyo kolkaasi iyo Fidel Castro wuxuu yidhi saddexdiinna waxaad tihiin dal dhisaya nidaamka hantiwadaagga cadowgu yuu idinka faa'iidaysan ee ha dagaalamina Maxamed Siyaad wuxuu yidhi waa oggolaadeen labadii kale Maxamed Siyaad wuxuu yidhi Soomaali galbeed oo laysoo raaciyo ayaan ku joogi karaa kaasina halkaasuu ku fashilay nidaamka intaas kolkay dhacday ee uu Brezhnev intuu u yeedhay uu ku diiday ayaa loo yeedhay Fidel Castro wuxuu yidhi Addis Ababa tag Mengistu ha yimaad markaa halkaa maxaa ka soo baxay in la abaabulo ciidamada Cuba East Germany Yemanta xataa cadan kolkaa Liibiya yacni ciidamo fara badan Sovyetkiina uu yidhaaho wax alliyaale wixii loo baahdaa ayaa bixinaynaa halkaasaa marka dagaal waxaa laynagu soo qaaday
aan la malayn karaynin anigaygani indhahayga waxaan saaray diyaarad tank dhigaysa tank yaa ciidankeen haddii sovietku waagaas yani ha baxaan ciidamada soomaalida ha baxaan laakiin yaa la laynin la baabiin ilaa heerkaasay gaadhay marka hadda waxaa weeye idinkaa hadda gacanta ku haya la dagaalankii cadowgii ugu xumaa ee ina haysta weeye ee inoo diiday waxaynaynu la soo baxno raashinkeennii xataa inaan la soo baxno dadkeennii baabi'inaya waxaan filaya inay 800 oo qof ahaa 14 Oktoobar qaraxii ka dhacay soobe halkaynuu bixinay intaa dhaawaceena caddad ma lahayn waxa weeye waxaan idhaahdaa anigu 3 arrimood midna ma aha qoladaasi muslin ma aha oo hadday muslim yihiin diinta islaamku waa diin nabadeed weeye miyay samayn lahaayeen maya soomaali ma aha oo hadday soomaali yihiin dadkooda miyay sidaa u layn lahaayeen oy xasuuqi lahaayeen maya siyaasiyiin ma aha oo hadday siyaasi yihiin siyaasigu dadweynaha inuu kasbado weeye oo ileen uu taageero ka helo ileen waa siyaasadoo cod buu raadinayaa laakiin ma u laayeen 3 arrimood oo ay sameeyaan midna ma aha ee waxay yihiin aniga ciddii taqaana ha ii sheega baan idhaha waxaan filayaa hadda gacantaad ku haysiin gacanta ayaad ku haysiin oo haddaad xildhibaanna tihiin iyo haddaad senatara tihiin iyo haddaad wasiirra tihiin iyo haddaad madaxweynayaal tihiin waa loo taagan yahay annagoo hadda anigiiyo guddoomiye sheekh aadan waxaan ku ahay waxaan na keenay waxay ahayduun hadda ku talagalkaygu maaha inaanu dad badan iyo waxanagu ahay inaanu madaxweynaha intaanu u nimaadno aan ku dhiiri gelinno hawshan uu galay keliya ahayd shirkanna ma ahayn shir aan ku talagallay oo hadda hadalba inaan ka jeedinahayn laakiin maantu madaxweynuhu noo sheegay inaad shirsadantihiin caawa hashaalka lagu leeyahay kolkaa waxaan idin leeyahay guulaysta haddaynaan al-shabaab ka adkaan wax kaloon qaban karnaa ma jirto haddaynaan nabad helin oynaan dalkeenna nabad ka dhigin oo maxaynu qabanaynaa anigu hadda sharciga aan sameeye xaggeen geynayaa ee uu ka soconaya low enforcement buu rabaa sharci kolkaa waa inaan horta dhisnaa nabaddii iyo dawladdii meel marin lahayd sharcigaas markaasay noqonaysaa inaan ka farno madaxweyne waa kugu dhiiri gelinaynaa kolley aniga hadda da'daadaayo tabara sheeganayaaba ma jiro laakiin waa ku taageersanahay waa kugu taageerayaa waa idinku taageerayaa waxaan hayaa waa afkana waa idinku taageeraya waa idinku taageeraya aad iyo aad baad u mahadsantihi